guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Qaaxada tiibishada ama TB-da waa cudur uu sababo bakteeriya. Bakteeriyada TB-da ayaa inta badan weerara sambabada, laakiin ku dhowaad meel kasta oo jirkaaga ka mid ah ayay weerari karaan. Laakiin qof kasta oo ay ku dhacdo cudurka bakteeriyada TB-da kuma xanuunsado. 3 qof oo dunida ku nool, 1 qof ayaa qaba waxa loogu yeero xanuun dhaliyaha cudurka ama tiibishada qarsoon. Laakiin qof kasta oo ay ku dhacdo cudurka bakteeriyada TB kuma xanuunsado. 3 qofba oo dunida ku nool, qof ayaa qaba waxa loogu yeero xanuun dhaliyaha cudurka tiibishada qarsoon. Haddii bakteeriyada TB-da ay soo firfircoonaato oo ay bilowdo inay laba jibaaranto, qofku wuxuu isku bedeli doonaa in xanuun dhaliyaha cudurka tiibishada qarsoon. In cudurka TB-ga aad la xanuunsato, kaa waxaa loo yaqaan TB firfircoon. Shakhsiga qaba TB firfircoon jirro ayuu dareemaa oo wuxuu u baahan yahay daryeel takhtar. Waxaa laga yaabaa inuu qabo qufac daran oo ku haynaya 3 toddobaad ama in ka badan. Waxaa dhici inuu xabadka shabka xanuuno, oo xitaa waxaa dhici karta inuu dhiig soo qufaco. Waxaa dhici karta in aad iyo aad daal u dareemo oo cunto cunidana aysan ka hayn. Waxaa dhici karta in miisaan aad lumiso. Waxaa laga yaabaa inay ku hayso qandho, qalqalyo iyo dhidid inta habeenkii lagu jiro. Dadka qaba TB-ga firfircoon, bakteeriya dadka kale ayay ku faafin karaan waqti kasta, sida xubno qoyska ka mid ah, asxaab sokeeye, iyo dadka ay isla shaqeeyaan. Qofka qaba TB-ga firfircoon marka uu qufaco, hindhiso, hadlo, heeso ama qoslo, bakteeriyada TB-da hawada ayay gashaa oo dhibicyo yaryar ayaa hawada gasha. Waxaa dhici karta in dadka ka agdhow ay neefsadaan bakteeriyada oo ay sidaas ku qaadaan cudurkii. Xanuunka TB-da kuma faafo salaanta gacmaha, firaashka sariirta taabashadeeda, ama fadhiga musqusha taabashadeeda. Hase ahaatee, qofka ay ku dhacdo cudurka bakteeriyada TB-da kuma xanuunsado. Dadka qaarkood waxay qaadi doonaan cudurka tiibishada qarsoon, oo marnaba ma dhici doonto inay qaadaan tiibishada firfircoon. Dadka kale waxaa dhici karta inay qaadaan xanuunka tiibishada firfircoon ama xitaa sanado kadib marka ay ku dhacdo, goorta difaaca jirka ee cudurka uu daciifo. Dadka qaar waxay halis ugu jiraan cudurka tiibishada qarsoon ay isku beddesho tiibishada firfircoon. Dadka qaba xanuunada qaar sida sokorowga, fayraska HIV-ga, ama mukhaadaraadka ama qamriga ku tagrifala waxay halis aad u weyn ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka TB-da. Carruurta ka yar 5 sano ayaa sidoo kale halis weyn ugu jira, maxaa yeelay difaaca jirkooda ee cudurrada si fiican isuma qabsan. Waxaa jira 2 nooc oo baaritaano oo sheegi kara haddii shakhsiga uu qabo bakteeriyada TB-da iyo inay jirkooda ku jirto iyo in kale. Baaritaanka TB-ga ee maqaarka iyo baaritaanka TB-ga ee dhiigga. Waaxda caafimaadka ayaa bixin karta baaritaanka TB-ga ee maqaarka. Haddii baaritaanka TB-ga ee maqaarka uu positive sheego, qofka takhtarka ayaa loo diraa si baaritaan iyo daryeel dheeraad ah loogu sameeyo. Shakhsiga qaba tiibishada firfircoon waa inuu guriga keligii joogo oo dadka kale ka fogaada ilaa isaga ama iyada ay ku bilowdo in daawo ay qaataan.
waa inuu 6 ilaa 9 bilood uu daawo qaataa ama marmarka qaarkood ilaa 2 sano. waxaa aad iyo aad muhiim u ah inuu dhammaysto dhammaan daawooyinka loo qoray oo uuna qaataa sida takhtarka uu faray. Kalkaalisada waaxda caafimaadka ayaa la hadli doonta qofka qaba TB-shada firfircoon. waxay ku weydiin doontaa su'aalo si dadka kale si looga ilaaliyo inay TB-da ay qaadaan. waxaa muhiim ah in qofka TB-da qaba inuu si daacadnimo uga jawaabo su'aalaha kalkaalisada ay weydiinayso. kalkaalisada si taxaddar ayay u kaydisaa wixii xog ah. sida ugu wanaagsan ee la isaga difaaci karo waa in qofku ugu yaraan 6 feet oo kale u jiraa qofka qaba TB-shada firfircoon. sidoo kale gurigaaga waa inaad ka nadiifisaa jeermiska oo gacmahaaga markasta ku dhaqdaa saabuun iyo biyo. wadajir oo wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.